salaamun calaykum maanta mawduucayna wuxuu yahay waxsiismada aan joogtada ahayn iyo falcelinta dadka. waxsiismada waxbixinta sadaqada waa iskaashiga bulshada ee diinteen islaamka ee dhiirigelisay ayna tahay qofka muslimka inuu ku farxo in uu walaalkiisa uu ka gacan sareeyo inuu wax u taro. balse xaqiiqda dhabta ee tahay in la ogaado ayaa waxay tahay qofka bini'aadanka xaaladiisa ma noqonaysa mar walba isla sidii ilaan wuxuu soo marayaa marxalooyin kala duwan. hadduu ahaa qof wax bixin jiray waxaa laga yaabaa mararka qaar inuu gaaro heer ah in asi wax la siiyo, laakiin dadka la qabsaday qofkan inuu xaaladiisa ay sugneed uu wax bixin jiray haddii ay ka waayaan ayaa waxaa dhici karta inay fikrado khaldan ka aaminaan. waa qofka hadduu caqiidadiisa iimaankiisa hooseeyo, qofkaani kuma fikirayo maxaa sababay qofkaani oo wax bixin jiray inuu diido inuu tookadaan kolkan inuu bixiyo, maxaa ku qasbay ma dhihi karo. wuxuu leeyahay qofkaani adduunya jecel ayaa gashay, ma bixinayo sidii hore ma ahan. waxaa dhici karta inuu hadallo xanaf leh uu ku tuuro uu dhaawac gaarsiiyo qofkan wax u tari jiray. xaaladana waa xaalad hore usoo jiri jirtay oo waagii hore asxaabta xilligii nebiga u noolaa ay jiri jirtay. aayad quran ayaaba kusoo degtay oo leh in dadka qaar ay ku ceebeynayaan dadka kale sadaqadii waxyaalaha waxsiintii waxbixinta. haddii wax la siiyana qaarkood ay farxayaan, haddii wax loo diidana wax la siinay caroonayaan. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. qof kastoo bini'aadan ah xaalad gaar ayuu leeyahay, xaaladaas gaarkan alla keliya ayaa og. qofkaani markuu wax bixinayo waxaa ka horeysa inuu soo shaqeeyo. shaqadaas uu shaqeynayo waxaa dhici karta inuu 8 saacadood uu meel fadhiyey, xabsi ahaan inuu ku jiray meel laga shaqeynayo aan laga soo bixinin 8 saacadood markay kasoo wareegato, maalin walbana subaxdii u kala hayo galabtiina kasoo laabanayo. saacadahaas uu shaqeynayo waxaa laga yaabaa hal maalin 2 maalin 3 maalin marka la isku daro wuxuu soo shaqeeyay macala waqtigooda in uu adiga ku soo gudbiyo ku soo xawilo, adigana u aragto wax iska basiid ah maadaama uu meel fiican oo xaaladeedu wanaagsan tahay uu joogo. laakiin xaaladda guud qofka u gaarka ah cidna ma ogo. 8 saacadood uu maalintii qofka uu ku xayirnaa meesha uu xabsiyaan ugu jiray uu ka soo shaqeynayay, marka ay soo gaarto hal bil kadib bisha dhamaadkeeda oo kale mishaarka markii loo soo diro, qarashkaas oo loo soo diray ma ahan mid uu meel iska dhigayo. qarashkaas waxaa laga sugayaa meesha uu degan yahay jaar inuu ku bixiyo, korontadii, biyihii, wax walba asiga uu isticmaalay inuu bixiyo. waxa uga soo haro markaasiti inuu daydayo inuu qofkii wuxuu tari karo uu taro. tan kalena mustaqbal qofka uu leeyahay waxaa dhici karta marar suuqyada hoose u dhacaan. bishaani wuxuu helay inuusan helin bisha kale, si uu bisha kale ugu moodo waa inuu bishaan in yar meel dhigto. laakiin haddii uu qofka bil walba waxa ka sugto asigana bishii uu haayo uu ku siiyo, bisha kale uu ku siin waayena aad tiraahdo qofkan adduunya jecel ayaa gashay, hantidii uu ku dhagayaa ma jecelo inuu wax bixiyo. marka taasi waxay noqonaysaa inaa qofkaas maladiisa gashay malada. qofka bini'aadanka maladiisana ma haboono in la falanqeeyo, alla keliya ayaa og. in lisgarto lisfahmo waa waxa ay ku jirto bini'aadanka wada noolaanshadooda iyo niyad sami iyo hadal wanaagsan liskula dhaqmo. taas ayaa ah mid guul weyn oo dadka ka dhexeysa la habboon in la gaaro.